بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الوزراء حكومة جمهورية الفدرالية الصومالية مدن حمزة عبدي برre waxaa galabta uu isku shaandhayn ku sameeyay xubnihiisa golaha wasiirada ee xukuumadda danqaran. Isku shaandhayntaasi waxay saameynaysaa xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda, wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah iyo wasaaradda gaashaandhigga. Ra'iisul wasaaruhu markuu arkay qodobada 97, 98 iyo 100 ee dastuurka kumeel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, markii uu arkay howlaha baaxadda leh ee hor yaalla xukuumadda danqaran, markii ra'iisul wasaaruhu uu tixgeliyay talada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, isla markaana markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabidda xubnahan golaha wasiirada, waxaa ra'iisul wasaare mudane Xamse Cabdi Barre uu magacaabay xubnahan soo socda. kow, mudane Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi waxaa loo magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. mudane Cabdisalaan Cabdi Cali Daay waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah. mudane Ambassador Axmed Macalin Fiqi Axmed waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya. wabillahi tawfiiq.